taliyaha cusub ciidanka difaaca Kenya General David Carter ayaa booqasho rasmi ah ugu tagay ciidamada Kenya ee ka howlgala gudaha Soomaaliya qaybta howlgalka AUSOM si uu u qiimeeyo howlgallada socda uguna dhiirigeliyo dardargelinta howlgalkaasi waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta labaad ee AUSOM Edward Banda iyo ku-xigeenka Colonel Samson Kenga. taliyaha iyo urdigiisa ayaa kormeeray saldhigyada muhiimka ah ee ku yaala magaalooyinka Dobley, Afmadow iyo Kismaayo ee ciidanka AUSOM halkaas ay ku leeyihiin. intii lagu guda jiray booqashada iyo kormeerka taliyaha cusub ee ciidanka difaaca Kenya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda uu leeyahay howlgalka ciidanka midowga Afrika ay ka wadaan Soomaaliya isla markaana lagula dagaalamayo Al-Shabaab si loogu xoreeyo deegaano badan oo haatan gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab. taliyaha waxa uu ka hadlay dardargelinta howlgalka iyo sidii loo taageeri lahaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale uu dhiirigeliyay qaybta labaad ee AUSOM ay si buuxda uga go'an tahay gudashada waajibaadkooda ku aadan xasilinta Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. booqashada uu taliyaha cusub ee ciidanka difaaca Kenya uu ku tagay xeryaha ay ciidanka Kenya ee ku yaala magaalooyinka Kismaayo, Dobley iyo Afmadow ayaa imaanaysa xilli dowladda Kenya ay doonayso in ay dardargeliso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si ay u garab istaagto ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. ammaanka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa aad loo adkeeyay iyadoo la filayo in maanta uu magaaladaasi uu ka furmo shirka dhamaystirka maamulka SSC Khatuma. shirkan ayaa dhowr jeer dib u dhacay iyadoo odayaasha dhaqanka ee deegaanada SSC Khatuma ay isku khilaafeen shirka iyo sida loo qabanayo. hase ahaatee hogaamiyaha maamulka SSC Khatuma Cabdulqaadir Fardhiye ayaa waxa uu go'aan ku gaaray in maanta uu furmo shirka isagoo wacad ku maray in dhammaan cid kasta ee ka soo horjeesata dhamaystirka maamulka SSC Khatuma uu ka hortagayo isla markaana ciidamada SSC ay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan cid kasta ee ku wada carqaladeynta shirkaasi. waxaana la filayaa in wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Xoosh oo ku sugan magaaladaasi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo in ay qayb ay ka noqdaan shirka isla markaana halkaas ay ka bilaabaan dardargelinta dhamaystirka maamulka SSC Khatuma. odayaasha dhaqanka qaarkood ee SSC Khatuma kana soo jeeda deegaano ka tirsan gobolada Sanaag iyo Highland ayaa aad uga soo horjeestay shirka iyadoo garaad jaamac oo ah garaadka guud ee SSC Khatuma uu shaaca ka qaaday in shirkaasi aysan ka qayb galayn ilaa iyo inta dadka reer SSC isaga imaanayaan isla markaana ay ku heshiinayaan nooca maamul ay doonayaan iyadoo aan faragelin lagu sameyn.